Frank Selek waa 88 sano jir u dhashay dalka Croatia waxa la sheegaa inuu yahay nin aad u nasiib badan sanadku markuu ahaa 1962 isagoo safara oo tareen saaran ayaa tareenkii waxa ku soo dumay buur baraf ah dabadeed tareenkii webi ayuu ku dhacay dhammaan dadkii saarnaa tareenka waa ay geeriyoodeen balse Frank Selek alla ayaa ka badbaadiyay oo waxba ma gaarin marka laga reebo dhaawac yar oo lugaha ka soo gaaray sanad kadib ayuu markii ugu horeysay noloshiisa diyaarad raacay markii diyaaradii ay duushay ayuu matoorkii ka ciladoobay nasiib wanaag Franko daaqad ayaa u furantay uuna iska tuuray diyaaradii dhulka kumay dhicin waxa ay ku dul dhacday meel qashin badani uu yaalo wax dhibaato ahna diyaaradu soo ma gaarin inta kaliya kuma eka dhacdooyinka ninkan soo maray sanadku markuu ahaa 1966 ayuu soo raacay gaari bas ah si uu shaqadiisu waado baskii uu saarnaa wuxuu ka soo dhacay buundo wuxuuna ku dhacay webi buundada ka hooseeya afar ruux oo iyagu la socday baska ayaa halkaas ku geeriyooday laakiin ninkii Franka ahaa wax dhib soo ma gaarin sanadku markuu ahaa 1970 ayuu gaari ama baabuur iibsaday isagoo oo gaadhiga ka xaynaya ayaa si lama filaan ah matoorkii gaadhigu dab u qabsaday isla markiiba gaarigii ayuu ka booday ilbiraqsi kadib gaarigii ayaa qarxay sanadku markuu ahaa 2005 ayaa waxa uu soo iibsaday warqad baqtiya nasiib ah waxaanu ku guuleystay $1,100,000 Mareykanka ah haddaba daawadi haddii aad tahay ruux nagu cusub fadlan subscribe saar channelkeena sidoo kale haddii muuqaalkan uu ku cajab geliyo ama uu ku soo jiitay la wadaag oo share asxaabtaada gaarsii